Maldives waa jasiirad qurux badan oo ku taalla koonfurta bari ee Badweynta Hindiya, iyadoo xeebta galbeed ee Hindiya ay u jirto in ku dhow 700 oo kiiloomitir. Dhanka waqooyi waxaa ku wareegsan Badweynta Hindiya, dhanka koonfureed waxaa ka xiga jasiiradda Sri Lanka, taasoo ku taalla koonfurta bari. Dhanka galbeedna waxaa ka xiga jasiiradda Hindiya, gaar ahaan gobolka Tamil Nadu. Dhanka bari waxaa ka xiga Badweynta Hindiya, iyadoo aan jirin jasiirado kale oo ku dhow. Dhulka Maldives waa mid khafiif ah, isagoo leh jasiirado aan buuro weyn lahayn. Jasiiradahani waxay ku faafsan yihiin badda, waxaana ay ku jiraan aag deegaan badeed ah oo la yaab leh. Maldives oo caan ku ah muuqaaladeeda cajiibka ah, biyaha buluugga ah, iyo hoteelada biyaha korkooda ku yaala, waxay noqotay mid ka mid ah meelaha ugu horeeya ee loo dalxiis tago caalamka, taas oo soo jiidata dalxiisayaal ka kala yimaada daafaha dunida. Taariikhda Maldives waa mid qani ah oo aad u qoto dheer, taasoo dib ugu noqonaysa in ka badan 2000 oo sano. Maldives waxaa asal ahaan deganaa beeraley iyo kalluumaysato ka yimid wadamada u dhow sida India iyo Sri Lanka. Qarnigii 12aad, Maldives waxay u gudubtay Islaamka, waxaana loo aqoonsaday inay tahay boqortooyo Muslim ah. Tan iyo markaas, Maldives waxay la kulantay saameyn ka timid ganacsatada Carabta, boqortooyadii Britain, iyadoo ugu dambeyntii xorriyaddeedu qaadatay sanadkii 1965. Dhaqanka Maldives waa mid hodan ah oo ay ku milmeen dhaqamo kala duwan oo soo maray jasiiraddan. Dadka Maldives waa Muslimiin Sunni ah, diinta Islaamkuna waa qayb muhiim ah oo ka mid ah noloshooda. Dadka jasiiraddani waxa ay aad u ixtiraamaan diintooda iyo dhaqankooda, waxa ay ku dadaalaan ilaalinta asalka iyo dhaqanka soo jireenka ah. Maldives waxa ay caan ku tahay muuqaalada dabiiciga ah ee aan loo barbardhigi karin jasiiradaha kale. Biyaheeda cad ee badweynta iyo ciiddeeda, iyo nolosha xayawaanada biyaha hoostooda ku nool sida kalluunka kala duwan, kooraalka midabada leh, iyo sharks-yada yaryar ayaa ka dhigaya Maldives meel aad u qurux badan. Dalxiiska ayaa ah isha ugu weyn ee dakhliga ka soo gala jasiiraddan Maldives, iyada oo jasiirad kasta ay leedahay waxyaabo gaar ah oo soo jiidasho leh. Xeebaha Maldives waa kuwa ugu wanaagsan adduunka, iyadoo ay biyaha turquoise ay ka dhigayaan meel ku habboon dabaasha, quusidda iyo kalluumaysiga. Qof kasta oo booqda Maldives wuxuu heli karaa fursad uu ku qaato waqti lama ilaawaan ah, isaga oo booqanaya hooyo casri ah oo ku yaala badda dhexdeeda. Maldives waa meel caan ku ah hoteelada biyaha korkooda ku yaala. Hoteeladan ayaa ka dhigaya meel cajiib ah, waxay ku yaalaan badweynta dhexdeeda, waxayna dalxiisayaashu siinayaan fursad ay ka helaan nolosha biyaha hoostooda iyagoo aan guriga ka bixin. Quusitaanka iyo snorkeling-ka waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee caalamka lagu sameeyo Maldives. Quusitaanka iyo snorkeling-ka iyo biyaha nadiifka ah, nolosha badda ee quruxda badan ayaa ka dhigaya mid aan la ilaawi karin. Sidoo kale, Maldives waxay leedahay xeebo cadcad oo dhirir badan, kuwaas oo bixiya jawi deggan oo loogu talagalay nasashada. Maldives waxay soo jiidataa dalxiisayaal ka kala yimaada daafaha dunida, gaar ahaan kuwa ka yimaada wadamada horumaray. Sanad walba, Maldives waxay soo dhaweysaa in ka badan 1.7 milyan oo dalxiisayaal ah sanadkii, waxaana la filayaa in tirada dalxiisayaashu ay intaas ka kororto, iyadoo ay Maldives ay sii wado soo jiidashada dadka dalxiisayaasha ah ee ka kala yimaada daafaha caalamka. Dalxiisayaasha ugu badan ee Maldives waxay ka kala yimaadaan dhowr waddan oo kala duwan. Tirada dalxiisayaasha ayaa si weyn u kala duwan sanad kasta, laakiin wadamada soo socda ayaa ah kuwa ugu badan ee dalxiiska u yimaada Maldives. India ayaa ah ilaha ugu weyn ee dalxiisayaasha Maldives. Xiriirka dhow ee juqraafi ahaan iyo dhaqaalaba ayaa sidoo kale u fududeynaya, taas ayaana sabab u ah tirada sare ee dalxiisayaasha Indiyaanka ah. Dalxiisayaal badan oo ka socda United Kingdom ayaa soo booqda Maldives, iyadoo jasiiraduhu ay bixiyaan meel ku habboon fasaxyada iyo nasashada. Germany waxay leedahay tirada ugu badan ee dalxiisayaasha yimaada Maldives, iyadoo dalxiisayaal badan oo Jarmal ah ay u soo socdaalaan Maldives si ay waqti ugu qaataan xeebaha iyo guryaha biyaha badda korkooda ku yaala. Dalxiisayaal badan oo ka socda Italiya ayaa sidoo kale soo booqda Maldives, taasoo ay ka helaan cimilada diiran iyo hawada dabiiciga ah. Ruusiya ayaa sidoo kale ka mid ah
ilaha muhiimka ah ee dalxiisayaasha Maldives, iyadoo ay dalxiisayaal badan oo Ruush ah ay booqdaan Maldives xilliyada qaboobaha. Wadamada kale ee dalxiisayaasha yimaada Maldives waxaa ka mid ah dalalka Switzerland, Netherlands iyo dalal kale oo Yurub ah, iyadoo sidoo kale dalal kale oo tiro badan ay jiraan sida Aasiya iyo Ameerika. Maldives waxay soo jiidataa dalxiisayaal ka kala yimaada daafaha caalamka sababo la xiriira quruxda dabiiciga ah iyo adeegyada heerka sare ah iyo guryaha biyaha dushooda ku yaala. Jasiiradda Maldives waxaa ku nool xayawaano badan oo xiiso leh kuwaas oo ku dhex jira biyaha dhexdooda, waxaana ka mid ah whale shark. Waa sharkiga ugu weyn adduunka oo inta badan lagu arko jasiiradda Maldives. Whale sharkyadu waxay yihiin nooc aan khatar ahayn oo aad loogu jecel yahay in la daawado. Waxaad sidoo kale ku arki kartaa reef sharks kuwaas oo ku nool coral reefs-ka. Manta rays oo isaguna ka mid ah nooc weyn oo qooley ah waxay leeyihiin baalal ballaaran oo cajiib ah. Waxay inta badan ka muuqdaan meelo biyo fiican leh oo Maldives dhexdeeda ah. Eagle rays waa nooc kale oo qooley ah, isaguna waxaa lagu arki karaa gudaha jasiiradda. Nablon wrasse waa kalluun weyn oo midabo leh, wuxuu si gaar ah caan ugu yahay jasiiradda Maldives. Clownfish oo caan ku ah filimka Finding Nemo wuxuu ku nool yahay coral reefs-ka. Sidoo kale waxaad ku arki kartaa green sea turtles oo ah xayawaan qoloftiisu cagaaran tahay. Waxay si joogto ah ugu jirtaa biyaha Maldives dhexdooda, waxaana lagu arki karaa mararka qaar xeebaha iyo biyaha ku hareeraysan. Hawksbill turtle ayaa isagana ka mid ah xayawaanada aad ku arki karto. Maldives waxay hoy u tahay noocyo kala duwan oo octopus ah, xayawaankan badda oo ka tirsan noocyada daasadaha. Waxaa lagu arki karaa coral reefs-ka ee Maldives. Dalxiisayaashu waxay isticmaali karaan dhowr habab oo kala duwan si ay u daawadaan xayawaanadan, sida dabaasha loo yaqaano snorkeling. Waa hab fudud oo lagu arki karo noocyada kalluunka iyo coral reefs-ka. Scuba diving waxay bixisaa fursad aad u fiican oo lagu daawado sharkyada qooleyda iyo xayawaanada kale ee badda ku nool. Whale sharking waxaa jira shirkado dalxiis oo bixiya safaro gaar ah oo loogu talagalay daawashada sharkyada. Maldives waa meel aad u fiican oo lagu arki karo daawashada xayawaanada badda. Kaymuhu waa qayb ka mid ah nasashada dabiiciga ah ee Maldives, waxayna qayb ka tahay qaab dhismeedka jasiiradaha iyo nidaamka dabeecadda ee dalka. Nidaamka dabeecadda ee jasiiraddan kaymuhu waxay qayb ka yihiin nidaamka korontada ee Maldives. Waxay ku badan yihiin qaar ka mid ah jasiiradaha. Kaymaha Maldives waxay ka kooban yihiin geedaha cawska ah ee u adkeysan kara xaaladaha qoyan iyo heerkulka sare ee hawada. Maldives kaymuhu waxay leeyihiin qaab dhismeed dabiici ah oo ku xiran dabeecadda iyo xaaladda deegaanka ee jasiiradda. Waxa kale oo ay qayb ka yihiin nidaamka dhirta iyo xayawaanka ku nool. Maldives waxay bixiyaan deegaan dabiici ah oo lagu nasan karo. Inkastoo ay jasiiraddan caan ku tahay xeebaha quruxda badan iyo biyaha buluugga ah, dhirta ka baxda jasiiraddani waxay sidoo kale muhiim u yihiin deegaanka. Geedaha coconut ayaa si weyn ugu faafay Maldives, waxaana laga helaa meelaha xeebaha ah. Waxay bixiyaan bay'adda dhulka, sidoo kale waxay leeyihiin faa'iidooyin badan. Geedka loo yaqaano tamarin ayaa laga helaa qaar ka mid ah jasiiradda Maldives. Tamarinka wuxuu leeyahay miraha loo isticmaalo cunto karinta iyo daawooyin dhaqameedka. Geedaha pandanus wuxuu ku faafay xeebaha Maldives, wuxuu leeyahay caleemo dheer oo leh qaab gaar ah. Geedkan waxaa loo isticmaali karaa dhismaha iyo agabka guryaha. Dhirta Maldives waxay leeyihiin door muhiim ah oo ku saabsan dalxiisayaashu ay daawan karaan. Dhirta Maldives waxay leedahay soo jiidasho gaar ah oo ay daawan karaan dalxiisayaasha. Waxay sidoo kale kaalin ka ciyaaraan korinta dhaqanka jasiiraddan iyo taageeridda nolosha dadka iyo xayawaanka ku nool Maldives.